اسكتوبنينا تلابو نغضاي كانت سننتي استبيد همه قد يوم سامنا حفلتنا ونوبل عمليسا إن شاء الله وحنكون بالعربية أحوال وحنكون بالعربية عيالها قرانك الشيخ سعيد محمد علمي وعيالي قرانك هل كان عاود الأخير دورا الشيخ سعيد كسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم. waxaa idin sheegayaa walaalayaal adduunka wax yar baanu joogaynaa wax aad u kooban baanu joogaynaa marka waxa loo baahan yahay Allah subhanahu wa ta'ala aayaadkan hadda anigu aan akhriyay qoomamayna ka horeeyay bay ahaayeen oo adduunkan intay xoogaa isbideen awood isbideen ilaahay subhanahu wa ta'ala au dhaafiyay. bismillaahir rahmaanir rahiim. markana waxaan u yeerayaa gudoomiyaha jaaliyadda Puntland Cabdirasaaq Cali Abubakar Namhaan ku soo dhaw mikrofoon. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladan jaaliyadaha maamulooyinka odayaasha dhalinyarada dhammaantiin waxaan kaga mahadcelinayaa sida noo soo ajiibteen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin kasoo qayb galista. intaa kadib waxaan mahad gaara u celinayaa Safiya Cabdi Baydhabo oo guddiga ku jirta aadna uga shaqaysay. sidoo kale waxaan mahad gooni u celinayaa Raxmo Cumar Faadimo Xaaji Xaraash Faadimo Sacuudi ku magac dheer. waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa Ubax Kadabo Sureed Calimaad Yuusuf Sheekh Cabdiraxmaan Yuusuf Shabeelle u taqaanaan Shabeelle Shoob. dhammaan intaas waa inta si gaar ah uga qayb qaadatay xafladan quruxda badan oo runtii shaqo oo gooniya noo qabatay. intaa kadib maamooyinku aad bay u mahadsan yihiin inay soo ajiibaan odayaashu sidoo kale. waxaa halkan isugu nimid sidaad ogtihiin sanad guuradii 19aad ee ka soo wareegatay aasaaskii Puntland. Puntland 19 sano ay jirtaa. waa dowlad iyo nidaam muddo soo jiray muddo wax badan Soomaaliya ay danaheeda ka soo shaqeeyay dadka deegaanka deganna wax badan u qabtay aan ugu rajo weynahay inta ay ka badan inuu qabto. waxaan sidoo kale mahad gooni u celinayaa odayaasha baananka fadhiya oo ayagana odayaashii magaalada ah oo na soo ajiibay. waxaan leeyahay Soomaalidu waa dad isku wada wadana isku dala isku diina isku dhaqana oo de nooc walba wadaaga. sidaaligeed waxaa muhiim ah in jaaliyaduhu wada shaqeyn yeeshaan xiriir dhow yeeshaan Soomaalinimada laga shaqeeyo special marka aan Denmark joogno oo aan Denmark deganahay waa muhiim dadku inay Soomaalinimadu ka wada shaqeyso oo ay ka dhaxayso because kulligeen waxaa noo astaana Soomaaliya iyo Soomaaliya waxaan micnaha markii laga soo tago
astaamahan kale aan gooni-goonida u leenahay laakiin haddana soomaalinimadii iskuma diidanin oo waxaa muuqata inaan soomaalinimo isugu nimaadno inaan soomaalinimo isku taageerno inaan soomaalinimo wax badan ku wada qaybsanno saad la hadligeed dadka halka isugu yimid waxaan ku baraarujinayaa jaaliyadda Puntland waxaan ku baraarujinayaa dhammaan Soomaalida oo dhan waxaan ku baraarujinayaa in soomaalinimada halkan Denmark wadajir gacmo wadajir bay wax ku gooyaan inaan wadajirkaas u wada shaqeyno insha Allah waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wadajirkaas u wada shaqeyn doono wax badan baan qabsan karnaa markii halkan Denmark aan soomaalinimada ku wada shaqeyno ama aan soomaalinimada wax ku wada qabsano marka aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa soo dhawaada special jaaliyadda Puntland waxaan leeyahay aad baan u mahadsantihiin sida ay u soo ajiibteen waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaana waxaan ku wareejinayaa xaaf iyo heestii calanka loo istaago heesta calanka insha Allah Somalia Puntland waxay wixii Buraanbur ay noo tiri doonto eedo Sahro Cali Carab marka ku soo dhawaada soo istaag waxaan ka cudur daaranayaa anigoo la soo istaajiyay jamaamuurti waaweyneed Ilaahay waaweyn ee taariikhda weyn lahayd ee isway ka soo halgantay oo fadhiya caawa in la soo hormariyo horta waan ka xumahay waana ka cudur daaranayaa ayagaana isoo fasaxay ma soo istaageen Xaliimo Soofa iyo cibaado halkan fadhiya midda labaad Buraanbur ma sida gabay baan sida wax ka sanayna Ilaahay soo xasuusino marka ugu horeyso way Ilaahay caadil inuu yahay casiis weyna uu yahay aabudaada mudan yahay aqligu nasiiyo indhaha cabiri kara ee bal cibaarada ugu inka yaa ka caawinay ninka ciidda gobol yiri buuraha ku celiyo wariyaal ka uriyiri balahaas artamaye ajaa'iba la yaab kale yaa caabiyayo cududiisu weyn tahay awada iyo dharaaraha kala cayn ayaa wada dayix iyo idkaha badan qorraxda iyo daruuraha ya kala carawsho cilmigooda garan kara aadan ciidda ka abuur oo yuu cidloonine xaawo feerta uga bixi yaa yidhi abiid codka aanu dhaqaniyo xayawaan ku ayniyo cayayaanka uu yidhi midka caasiya iyo midka caabudayaba yaan cunaha qabanine ku toogeeshka siiyo dulqaadkiisu culus yahay caqliga iyo wax maqalka cabiraada aragtida cafiyaha sankeena carabkaan la yaab kale cunaha aan wax mariniyo calooshaan kun ayn qaban cagaha aan ku soconniyo cudud iyo tagoogada bal calaacalaha dhugo soo waa cajaa'ibe caabudaada kuma muusan midka caasiya iyo midka caabudayaba carshiguu ku sugan yahay kama dhima hal ciide annagaa cabiidoo caawimaad u baahanay intaan arada eebbahay dhibka nooga soo dhici ummad yahay cawaanka camalkaaga dib u eg taasina waa ilaahay ka cabsado dana waxaan ka sheegayaa Puntland oo wali arkin baa tagay 2016 gabay aan yar boorkooda ka soo tiriyay markii aan basooday oo indhaha baalahooda iyo timuhu badan adaadeen dhabarkaygii buusmo lagu boos yihiin baabacada dhigashada ku kacaya bari nool yaan is iri basawraye bahdi aad jeclayd iyo Puntland oo soo baro ayan jari karin baduna ayan xali karin dhul ballaaran haystay yaan is iri basawaya inta aan Puntland u dhigin bahdi aad jeclayd iyo Puntland bal soo baro beledkii caluuliya baargaal biniya tooxin bareeda iyo xaafuun badarbayladaydi isku shubanta beeraha bahdu ay ka falatiyo balliyadii dharooreed bilicdii qardhood iyo boosaaso weyn buurihii sanaad iyo sool iyo bahdii ay
biniya tooxin bareeda iyo xaafuun bandarbaylada iyo isku shubanta beeraha bahdu ay ka falatiya balliyadii dharooreed bilicdii qardhood iyo boosaaso weyn buurihii sanaag iyo sool iyo bahdii ay mudug baaxadeed iyo bartamihii nugaaleed yaa is-inaba sawraya inta aan ku lamigin bahda aad jecleed iyo puntland balsoobo taariikhdu waa badan yaro aniga la ibaray aan midbayaasho muqdisho gumaysiga madowga uu ku bari jirin cadaanka madowga uu ka bixi jiray cadaankuna ku bari jiray boqorkii la yidhi bariya waa baxayaa baxday baan la baxayaa haddii kale la wada bari ilaan waa nin gun barakiyo gurji weyn lahaayee loo ballaqay albaabadii bandowgiina laga rogay jannadii ballaareed rabibaaha siiya puntland adaa galay beledii haysani barka lagu nagaadiyo noqo boos baraaqa taariikhdu waa baday yaro aniga la ibaray aan idiin bayaasho baashigii israel keligiis u soo baxay iyo bahdii ugu badnaydo loo bagay dhammaantood jannadii ballaareed rabibaan ha siiye puntland adaa galay barka lagu nagaadiyo noqo boos barwaaqa taariikhdu waa baday yaro aniga la ibaray aan idiin bayaasho gobonnimadan lagu ba'ay gabdhihii budda u galay ama ja ku baaba'ay ku xadbururiyo badan jannadii ballaareed rabibaan ha siiye puntland adaa galay taariikhdu waa baday yaro aniga la ibaray aan idiin bayaansho soomaalida badoowa bog wax lagu qoraa jirin wiilkii noo birmaday ee farbayaana noo qoray jannadii ballaareed rabibaan ha siiye puntland adaa galay markay barakamada tahay ummad loo baxsada baa kaa beermi jiray noqo boos barwaaqa taariikhdu waa baday yaro aniga la ibaray aan idiin bayaansho calankeena bilicdana buluug iyo cadaanka wiilkii soo bandhigay jannadii ballaareed rabibaan ha siiye puntland adaa galay bedelkeedii eeqow kugu sii nabad baahsan kugu sii waxba yaanan markii la isku baaba'ay bug iyo sawaxan dhahay nabadii bad lagu riday birmageeyadii iyo maatadii la dabar jaray hubkakiisa ba'aniya la isku dhacayo beebaha puntland ilaah baa ka badbaadshay daradoo bililada kama ay bixin ma burburin xafiisyadii iskooladii ma ay bixin ma baabi'in dekedihii ilaan waa dad beri hore erag lagu barbaarsho boqortooyo korisada ma haddiise aad ba'aysaan ama baaba'aysaan sida aabbayaashii bilada habaqaad oo u birmada buluugley sidii hooyadii bira kaalooyin bilicliya baal dahaba loo qoray haddii aad ba'aysaan ama baaba'aysaan u birmada buluugley intaasi wayga bayaan tana wayga barido salaan baaxad loo weyn badda iyo biriga leeg yaan bahda sheegan puntland baan ku bariidinayaa salaantaa ka sii badan baagga iyo wadnaha iyo beerka aan ka soo jaray yaan bahda sheegan puntland ku bariidinaya intaas wayga barido tanna wayga barido ilaahow baryadaada nin badsaa ma qabo baabacada eberkaa baan kuu qoylaqayaa waxaan kaa baryayaa puntland bad iyo biri barwaaqo aan dhammaan iyo farxad lagu balmuseeyiyo nabad caafimaad ku baahiyo rag u beer adeegiyo gabdho baawarweyn iyo ubad baariye ahoo barashiyo aqoon loo bixin loo baxsadis gabaygaan waxaan ku bilaabay riyo soo jeedna waa ku dhamaystiray hadda qeen baad iiga qaadinaysa gabaygaan wuxuu ka hadlayaa intii aan ka soo gaaray taariikhda soomaaliya habeenada ka mid aan ku fakeray dhibka yaala soomaaliya waa seexan waaye salaadii subax baa ii timi gabaygaanaan bilaabay marka anuu hurdaan bilaabay markaan soo kacana waan dhamaystiray xalan seexan waayo sariirtii xalan seexan waayo hurdadii ka salayay su-aal baa naftaydii iri heedha see tahay sariir raaxo badan baan kugu seexshay heedhe maxaa heedha kaasi ah saboolnimiyo gaajiyo cuduraad la shalashiyo silic kaama muuqdee maxaa heedha kaasi ah anigoo su-aashii weli helin jawaabtii yaa salaadii subax timi sunnada iyo faralkii labadaba markaan saxay yaan sariirtii qaabilay anigoon shaq dheergelin yaa samada lay dhigay dhul saroo cagaar badan saxansaxo udgoonoo dhirtu siman yihiinoo saakay roobka uu da-ay sallaxyada biyaha yaa ubaxii dul saarmeen subxaan allahi baan yidhi subax yaab la weeye xaggee saaka jooga
saamiligti baan dayay suldaan siinad wacan iyo soddon wiiloo wada siman sunnadii islaamka iyo sujuuddii ku wadataan salabkeennii wada sideenii dharka u xiran saaran farasyadeenii sabarrada dhexdooda iyo sayntuba caddaydo balse lagu barbaarshay liijaanka lagu xiray dahab laga sameeyey hal mar bay saf dheer iyo sinaan wada istaageen salaantii islaamkay igu wada salaameen salaantii ka dabadeed suldaankii ayaa yidhi inaad seexan weydo sariirtii la dirirto sinihii ku barareen yaan samada ka arkay maxaa heedha kaasi ah war suldaantuuban inaad tahay nin sarreeye aad tahay soomaali aad tahay saxab igama saaree adigoon su-aal iyo iweydiin sidaan ahay sababtaada sumadaada ii sheeg baan idhi wuxuu yidhi sahra waa runtaayoo waxaa loo sir sheegtaa saaxiibka wacan oo kula raba siduu yahay iyo ruux sokeeye oo kula jecel samaantay waxaan ahay suldaan guray adiguna suleeqay inaad seexan weydaan samaawaadka ka arkaye aniguba sabaan hore iyaan seexan waaye aan ku saacidee maqal saaxiib ma noqonaa oo sirta baysu sheegnaa sarbeeb iima laabmaan inay soo daa su-aalaha sax miyaa in gaaladii waddankii silsilayaan suldaan yahow gadaashaa sayidyaa inoo kacay gaaladii safeeyo waddankii ka saaro sama iyo barwaaqaan saban badan ku noolayn ha yeeshee gumaystuu ma samroo ma quustee misna soo horgaan celi isagoo sidii hore aan seefa sidanine samadiiyo dhulkaba mari oo saanad culusibayuu saaxibkii yimi oo 5 goobood inaga dhigay sida badan gadaashii misna saaja ayaa kacay iswaayee la oran jiray saanad iyo hubma ay sidan ee dhagax bay ku saareen say kalsooni buuxday Soomaalida ka haysteen rabbina waa kan saaciday sidaasaanu calankii 5 gees lahaan jiray laba saaray subaxaas labadiisa sabar iyo misakaarku maqan yahay kollay seexan maayee saddexdeeni kalabu soongur iyo dawaca iyo saqajaan u dhiibo sifihii gumaysiga si ka daran inoo gale oo dad iyo duunyadeeni subax bay dab saareen sanadkii afraad oo calankeeni saaraa 7 doorashana tahay oo aan saboolnahay suuradaha quraan iyo sunnadii islaamka ay subaxaas ku duuleen rabbina waa kan saaciday isagii suntiisii baarlamaanka sare iyo madaxdeeni siiyey saajooyin badan baa qabiil waliba suubsaday 30 wiil ha dhimatee yu iseegin woodkii sabaka catolkeeyow soo saas ma ay noqon madaxweynaheennii soo si fudud laguma dilin saru ma u kicin qabiilkii sumaysnaa oo baarlamaankiisaan saan dagaal iyo sanqar weyni kama iman oo ciidankeennii habeenkii 9 saac sarabkii ma xiran oo iqlaab aan saqiin dhiman subaxaa ma uu dhalan sow sarreeyaheennii siyaa taliya muu noqon subax talaadaad Soomaalida dhammaanteed sacab iyo cayaar iyo saacidaad iskuma darin sow saajac weeye Soomaalida ma wada simin sow ciidankeenu uma qaadin sare oo saraakiin waxbaratiyo saanad iyo hubma u siin sow baadiye beled far Soomaali lama qorin sow qabiilku waa sule soo xabaala nama oran sow beera falashiyo nama barin kalluun cunid sow gobolladeennii warshadiin wax soo saar kama uusan siminoo siyaada jir lama oran sow siyaasadiisii Afrikaadu ma saacid sow gobolladeennii sirdoon uma u dirinoo ma ogaan siday tahay iyo sida lagu wado sahan nabada muu dirin sawtuu gumaystuu samada isla marayoo lagu yidhi saqiir yahow socod ma adan baranina sabanaan ku haystay waxaad haysa soo daa tuusiyaad yidhi Soomaali tashada oo samaantii ku weynay seefaha ma sudan burburanaa sawtay Soomaalidii dagaal wada saxiixdeen sanad dagaalkii dunida ay la salashiyo sow ciidankeennii soodinta lahayn iyo ka sii saaid may qaban sow gaalku waa suna saaxiib ma yeeshee kii nala safnaan jiray sirteennii ma bixin oo soo noqoshadeennii sababteedu may noqon sawtuu gumaystuu sidii sarankii baarliin 5 loogu qaybiyey siduu beeniyo burburkeenna loo helo sahan looma dirinoo sow qabiilka ma ay noqon sow seexan maayee sirtiisii labada gobol kala soocma muu sow calankii saaraa iyo saldanadii ma ay dumin sow saanadeennii cadowga aan u sidan jiray sida looma gurinoo sokeeyuhu iskuma marin sow waa siduu rabee nama badin qaxootiga sow amxaar salkiis
iyo sawaaxili ma aan mudan ooti eerin salan hore aad siiseen sida aad badeen beri sidoodii ma aan marin su'aal kale wadaadkii baa igu soo noqday riyada iyo wiil su'aal kale suleeqoy jawaabteeda ma isiin wiil salaadiinta duugnaa iyo suldaamadii maxaa helay suldaan yahay waan yidhi saldanadii waa lagu sifaaday subaxii la gaaraba waa duub la saara saddon kun oo suldaan bay saldanadii maraysa hadba kii sunuud laa loo sacabatumaya iyo sideed gobol mid waliba sarreeya madaxweyne suubsaday iyo sumadeena calankoo sawirra aan la gadanayn laga saaray sabarrada siduu rabay gumaystaha ayay u suurtageliyeen sababnimiyo gaajood nooloo saxiixda sakeeya canshuuraha soomaali laga guro sababaa la geeya oo sanaawaana maamula saldano kii damaaciya sababuu u duulaa silic iyo dhibkeenna laga soo saxiixdaa sultana lagu marin baa laga soo saxiixdaa sodonkii degsiimada sarreeyay u suubsheen sir ahaanna ugu sheeg inay soohdintiisii 3 mayl ka maqan tahay wakiilaha dhamay buu dhahaa yuu shirkaa helin sakiirada dhamay buu dhahaa saa dhamay kicin siinadii haweenkana sawaaxiliga ugu dheer sida wiil sandheeroo soomaaliba u dhalan sinjidooristeennaad soo wada saxiixdiin sabanadan haweenkii saqajaan la gubay iyo seegseeg ku mooye wiil saxaba may dhalan sabanada reegooley kuwa seefi qaadiyo kuwa soori qaatoo soomaali iibsaday yay ku wada sifeeyeen allahu sahal amuuraha allahu sahal amuuraha allahu sahal amuuraha eedo sahro cali carab gabaygaas iyo buraanburkaas iyo hawlahaas aad u dheer aad ugu mahadsan tahay haddana waxaan microphone-ka idinkugu wareejinayaa nabadoon cabdulaahi cumar cadaawe insha allah waa maamul loo baahnaa xilligeedii iyo waqtigeedii yimid dad badan oo Soomaali ah oo aan u dhalan xataa Puntland ay ku badbaadeen iyaga iyo maalkooda iyo cid walba waa xilli loo baahnaa buu yimid maamulkaasi waan ugu tahniyadeynaynaa wixii laga qabtay iyo madaxdii soo madayba haddana waxaan microphone ku soo dhaweynayaa Xaliimo Soofe oo buraanbur halkan ayadana ka tirin doonta caaw ku soo dhaweeyay Xaliimo nooc wax yar ka tiriyo waqti dheer ka qaadanayo Puntland ha noolaato ma yeelahayo nimanka sayidkeeda Puntland ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo habar baan ahay 80 jir haddaa arigu wuxuu daaqo xooluhu markay meel naqli la geeyo oo dararaan laakiin hadda meel aan teegaan lahayn la geeyo way iyagoon aanan lahayn bay yimaadaan war aniga waxa iga dararin kara in la iga farxiyo oo sacab iyo adduun waxaan wadaa qaran Puntland qaran baa dhalay ma qarankan hormariya ma kowdii ogos baan hormariya ma waxqabadka Puntland baan hormariya maxaan hormariya qaranka haa intaan la dooranin farmaajo iyo ragiis yaan waxaan tiriyey buraanbur aan badnayn deegaan kasta ha dhashe ee daayimow ilaah الله هجند عدوه خير كدرين ياهي نبضنا غدق الكادين غدب الله هجند عدو ظاهر واحترى وعدربنا غدق الكادين غدب الله هجند دعي لوغد دكسدو ونبني من نقودك بالكاد ينقودك إلهي ونقودك رجع ما أنت رجامين إياه قرنك آد بان وجود عيننا آدنا وأمهات سيهين كل أنا هالكات يسارينهين فرد الله تهي وفره الجود بان الفرمات فرد الله تهي وفره الجود فرحت كنا ونعبكاك وكافوكا فرد الله تهي وفره الجود وفرد الله تهي
forehe lagoogo dheeb farmaajo farmaajo faa'iida badan la imo farxad ku nooloo nacabkaagu ka fogaa soomaalida fereersan madaxweyne noqo ku filan maxamed kugu faraxna madaxweyne noqo fadxiya awalan mahad buuxda rabbi baqibaa iskale bulshay baarlamaanka beseen kanu qaban hayaa bura bagan bay ahayd besa inay gurteen inayaan barbariiqan codka yaygu beenin karaa badbaadiye qarankii bilaadayna mudan yaheen xukuumadoo wadar ahaan waa wanaagsantiin masayr baa jira haddaan dhowrka soo qaato oo xukuumadoo wadar ahaan waad wanaagsantiin wadaniin baa tihiin wayirada ku qoran haddii laybabiyo waan wax iloobayaa iga kala daaya xukuumadooy wadar ahaan waad wanaagsanteen wadaniin baa tihiin wayirada ku qoran waxqabadkiinaanu gamaana walaalayaal diiranaantiisa khayran hurdada dognire war diiranaantiisa khayran hurdada dognire dacadnimadiisa baylan durduurana juxan deganaanta tiisa ku diirsana duqa magaalada waxqabadkiisa taabadaya allow noo daadigaanka duramanaya waxaan ku xujinhayaa ogos ilaah u naxariisayaashii asaasay ogos oo ilaah u naxariisayaashii asaasay ogos ee amman iyo ducaba umaaday ku leeyaheen ee allow jannadaada waasla ilaahayaw asaaskaagiiba ogosno ahaa abshire oo asaaskaagiiba ogosno ahaa abshire islaamka bilihiisa teebaad ku aadanayd laguma eedinoo ammaanba lagu sidaa ma kaamiladii reer buntland keena diidiba gumaysideedti oo ma kaamiladii reer buntland keena diidiba ma maalintee talada lagu koobay kulankiba ma maalintan waxgaradan ka miin koobka qaadayba ma maalintee sharafka milaankaydka laga dhigtaa kowda ogoska habaxaya makaagiba karaama ilaahay saaryay kornarusa ma maalintee faraska la kor saaray kooraha ma maalintee faraska la kor saaray kooraha ma maalintee shacabka ku keefaxay kaymaha ma maalintee sharafka milaankaydka laga dhigtaa kowda ogoska habaxaya makaagiba karaama ilaahay saaryay kornagu soco ma maalintee nabad ilaah keenay loo kacaa ma maalintee nabad ilaah keenay loo kacaa ma maalintaan lagu kameel kor in loo xirtaa ma maalintee sharafka milaankaydka laga dhigtaa kowda ogoska habaxaya makaagiba karaama ilaahay saaryay kornagu soco waxaa la yidhi soomaalidii waxay noqotay dayre ku noole iyo dagaal ku noole iyo duulaan ku noole iyo dayac ku noole iyo duudsi ku noole iyo dambi ku noole iyo daacad ku noole hal buu noqday intaasaa ku heeraaray waxbaa la qaban hayaa waxna waa dhiman yihiin waxba lama qabto waxba lama hayo waxba lama samayn muxuu sameeyey muxuu qabtay acuudu billaahi min ashaytaan rajiim ilaahayow dayro risqa nooga dhigin war waxaasaa la qabtay waxaasaa dhiman waxaasaa qabasho u baahan wax toosiyaa lala'ya wax bi'iya maahine
دايرة كنوره مدارات سيادية وردايرة كنوره مدارات سيادية دقال كنوره إبلايس كل درجة ياهي دولان كنوره شربه دوبيغا وسكا دودسي كنوره عذاب كدر مدى دكتا ضيع كنوره إله بدريال كسوغن دمبي كنوره كتيرو دولو مهلين محمد علي قاس إله عذاب هقالين ومحمد علي قاس إله عذاب هقالين اسو مدن يا ربي لو عذاب هقالين ومن عروس ربي لو عذاب هقالين عبدي ولود يا ربي لو عذاب هقالين مروادي كوهبتاه فنايدو هقاق سنايد ورمروادي كوهبتاه فنايدو هقاق سنايد هو يدابا هاي تسوشد لغو هميو هايقاد كو بربارتي همباليان كو هوران هيا hogaamintaada waxgaraadkii hesheesko yahay marka anaa isu buraanburay marka iday waayeen baan anagu isu buraanburay wixii ka dambeeyana kuwii ka horeeyay baa idiin sheegaya taan anagu is-iri baan saada sheegaya waxaan ciribtu waakhiriyo elayada runta ciribtu waakhiriyo iskana haya عوقبك يا كان عوري هو عرارو حقيقي عندو بتغي أبدد كواد كين إلهي بالعبيد الطهي العطش كسو دار البنبيعي ضفرك الليج ينغومني يعرك عادي يا تركي والمدر أمانك إذا غيس عوية درار قلت منها اسعنا والروح حيد عاسية يفتدري بان عنه توح علوكتين إلى الأبوية بان عندك كهري عويس يقول أدكي أنك غالي تشري عرف تقولي يحرير تنكو عارنا مصوركي عاشي وعنك يجتري أنكو عردنا يدوه عد إلى المقدرون أريد سوغان تيو عنك قوي كهري عمل فلكي يطلب به وأسيس مفري العلمي بالي بانتهان عافي مادك غلو وأسوى جلوه الله بيسيب عفيو عبسدا بيو إبا بيسبان الضاي هالكاسر waxaan ku xiray kii aan tirin jiray laakiin kuwa ka horeeyay baa jiray oo aanu tirin jirnay ardabilan gabar la yiraahaana curisay roob doonta naradeed baa la oran jiray waxay tiri abwaankii hadal yaqaanaan xumaanta hurin hiilka iyo heshiiska iyo nabadda soomaali hiilka gala hubka isqaadiya madaafiicda kama haddana cibaadi hanuuni dulkan iblaysku helay hooyo iyo aaba midna soo hanaana barin hubka u soo qaatay meeshay ku hoyanayeena hawada laga qabin inay noo noqdeen hormuud bay tiri balahayba saadimaysa ciddii hormuud ma noqon marka waxaan idhi saqdii anigoo istaago salaadu kacay arab saliimay iyo niyaanay musaafi tahay subxaankan tuugayo saatirkan cuskaday waxaan la sidaystay rabbiga masaajaha saraadaydiyo nasiibkaygu inay sugmaan la soo celino baryada layga saamaca sulfurahan baahayiyo qiiqa samada maray dagaama salalka ahlo ummadoodu tahay sabool shiftada surimada xirtiyo sohrimaha la jaray dhiigga soconaya jiidadkeena sarablaan ruux qaaray surayga sariigi jirin inuu rabbigiina ka suursho samaan la helo inuu saara balaaday siraadayaan sagaal inuu urto hoosayna noodaan
labada saaxiibo soo jallays la yahay sareediyo bari samahaadkiiba soo noqdaan oo sidigta maandha kuwada malasaliyo guul salaamaad min kulle aafad sursuura gudugu sanada laga naadso sunu waxaan dhammaanahayn allaahnu sadareeya suuganta iyo murtida sawdku wada qaada idinkoon siraysanayn subaxa yaasiinka iyo faatixiya salliga sudan intaad wada tiraahan sujuud la dhaca maasha allah qoonku saameeya kibiira saqlayn ku dara warmaha isku saafa oo sanada isla dhaca haddii kala sarraynba sinaantii diida dana kala sarrayn haddii loo seeta dheerayo sabana badan oo ayan soo noqono rabbigay u sacaba dhigan araasamadiyo arlada laga soo dajaa ee samuud iyo caad sidahoodii intaan la noqon sirsara dabayla iyo sayxayna ku kicin suka laloo laana sidaa gadsadkii la jaray la-aan la siqan waayo laydan wada sunayn sakhara jahannamiyo samhaarida nala ku burin quluubta sifaysta soomaaliyay dhammaan intaad gacmahaysa saadan sujuud la dhaca hawsha sadareeya qofkaas amigiisa wado kala sokaydii ku soo odasiya iyo sinaan oo sababa ku nagaata baashiisalka ugu furaa qoraalkiyo tirada soomaali lagu qadaro dhowr malyuun bay qiyaastii ka soo qabtaan waqaraaba iyo xidid midhan oo isqaba qaliiloo kala tishiyo qobtu kuwa habana durgooyada maanta haysana waa ku qalad ayaan qosol iyo ficiloo qaarbaqaar ayidin qiiro kay ku qoyan tahay heshiisu qeex kaa qarananiyo nabaaday qulgu istaag waxgaradkii qiimo loo xaajo kale ha qaban abwaan qumanaanta murtiidada ugu qisee oo qaxarka joogtada ah iyo qiiqa aan damin dagaalkan lala qabahayo oo qarribay waajibuga qurahutaana qarxinahayaa waajibuga qurahutaana qarxinahayaa war dowlad caalamkeed dhacayoon cirtayoon la arag ayal weydo waxbaaraadkay laga casilay diiwaashiyadii loo idaata weel mid lawaii madaxweynaan rabaa diiwaashiyadii loo idaata weel cadadka madaxnimada ciidihiba deeqi karin casriga maantaana wadaankana loo ogyahay caddaanku halgamaya guutarinkana ciidiya onka loo jooga ragbaa qarinuu calfado oo sida casiirkii dharmahaandhigisaga cabteen oduscaw diirteena tarantumi cidhir birteen oo layscariiqsanayo yaa ceelalyada u maqan layscariiqsanayo yaa ceelalyada u maqan carruurtiiyo cafiifadkaad qabtaan iyo cadladahiin cid aayay ka sugahayaan wadaaraha iyo yabaadeelomayaa ka eliid maraakiibta ma soo fadhiisan markaa sharafkiina iyo ciskiina iyo sida aad isu maamusheenna waa idinku hambalyaynayaa ilaahay marka ducadiiba igu habtoo waayeelku waa duceeyaaye ilaahay qaranka soomaaliyeed kona ka dhigo ilaahay waxaynu jecelnahay hayna siiyo dambiga ilaahay ayna ka saamaxo min jecelaysiga allah ayna ka daayo wixii khayr oo aan helay iyo horumar kuwii ku xamdiyo oo ku shukriya allah ayna ka dhigo ilaahay idankiis budlaanna ilaahay horumarkeeda ha siyaadiyo khayrka allah u waasiciyo meeshii lagu soo hirto awal ummadda hooyadeeda wayda allah ka dhigo nabadgelyadaas ilaahay sariixa u siiyo xaasidka iyo xiqdiga iyo muxuuta gafuur duubta ilaahay ha ka saaro ilaahay idankiis
waddankoo dhanna ilaahay cisiyo sharaf iyo nabad ilaha siiyo ragga inoo kacay kolba ku xasili mayno oo intaysan salka dhigin baan 80 magac u bixinaynaaye kuwa afkooda xagsado oo bulshada raqantaysuga allah ina ka dhigo ilaahay idanka allah ina ka dhigo iyagana tawfiiqda allah waafajiyo Soomaaliya way wax tagaan allah fahamsiiyo innagana kala go'goynta allah ina ka saaro Soomaaliya waa mid kaliya Soomaaliya ha noolaato oo ha israaciyo oo hamigoodo oo sharaf darrada allah ka saaro ummadda waa ku eedeereen 720 sano ilaahay is iyo nabad iyo calankooda u soo cesho waxay u badatay dhanka maamooyinka odayaasheenii gabyi lahaa kuraasta hoostooda ay galeen anigu waxaan damcay inaan gabyo laakiin guriga ku soo loobaxaanshidaan ku qortay marka nin yar baa i furtay oo junior oo arna hadda kadib inaan maamooyinka isaga dhicino maxamuud cabdulqaadir cismaan baa gabayar oo inooga tuuraya waa la sacbiyaa ragga ninka hooyadaada furtay waxaan ka soo jeedinayaa gabay la magac baxay Buntlander baan ahay inkastoo magaranaysayo Soomaaliya halkaan joogtay aysan ahayn bulsho kaliya reer Puntland waxay ahayd dhowr gabay oo mid Puntland mid Soomaaliya iyo mid aan ku cabirayo magaranaysaa Soomaalida jacayl inay gaadho Soomaalinimada daafaha aha noqoto magaranaysaa qurbaha iyo dalkiba Buntlander baan ahay baladkii beeyadiyo barti barwaaqada baashigii ku dhashay baan ahay Buntlander baan ahay beelaha bariyo balad xaawo baraawiye badco beedkii burcayo midkii isku mideen lahaa baan ahay Buntlander baan ahay badhan iyo sanaag buurihii calula midkii cadowga ka bidhaashaan ahay Buntlander baan ahay buuhoodla iyo baydhabo midkii xadhigga iskugu xiri lahaa baan ahay Buntlander baan ahay barsooc iyo belnacay midkii ka bidhaashaan ahay Buntlander baan ahay bartii Soomaali isku keentiyo kii hormadkeedii jeclaa baan ahay Buntlander baan ahay midkii Soomaalinimada ku faaniyo barka sare calanka kii kaga oolaa baan ahay Buntlander baan ahay baashi jecel balweynta Soomaali xanadkii bidhaamin lahaa baan ahay Buntlander baan ahay baahiye bukaan midkii ka bukaan ahay Buntlander baan ahay xijiga iyo dheemanka midkii Soomaali ku qoodin lahaa baan ahay Buntlander baan ahay beeyaday badaha bintirka dheer midii ummadda u bidhaanshay baan ahay Buntlander baan ahay midaan kala jeclayn beelaha Soomaali buddigoodii midkii u ifiyaan ahay Buntlander baan ahay boqorkii ummadda isku keenayo mid midigta kaga yaal baan ahay Buntlander baan ahay boqorkii ku dhashay beedkii wacnaayo bartii odayaasha Soomaali isku keenay baan ahay Buntlander baan ahay bartii aqoonta lagu yaqaaniyo quruxdii qardhood mid ay ka muuqataan ahay Buntlander baan ahay mid dharaariyo leyl rabbi u bariyaan Soomaali mideynteeda baan ahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أول بني سلام على دمانتي كون دغ دمان لاي هاو شعاوا يغا هاون مالينيا شقada ku badneed waa garanaysaa baan maleynaa reer Copenhagen doctorada weyn caasha cagoole ugu faraxsanaa reer Copenhagen quruxda in ka muuqata iyo shacnigeeda ka muuqda ma sha Allah oo waayaan aan kala maqnayn marka xafladda u soo socdo waxa la dhahaa caasha Puntland ma tiiray maxaa xafladda Puntland ka doonaysaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay inaan Puntland leeyahay oo dadka isku dhignaanahay dad walaalaana aan nahay meelna aysan Soomaali aysan kala tagin aynan kala maarmin Copenhagen waxaa lagu yaqaanaa haddii xaflad ay jirto ama marti ay imaato in la isla soo wada dhaweeyo la isla wada sooro waxaan ku faraxsanahay xafladda Puntland aan ka soo qayb galay waxaan idin leeyahay dhammaantiin gabdhaha marwooyinka isoo casuumay maxamed heelo walaashay raxmo salaad
dhammaan gabdhaha reer oos waan soo dhaweynayaa ee maama xaliimo sofe ay ugu horeyso iyo faadimo maxamuud indhayare oo reer indhayare ee dad igu weyn yihiin ugu qaali ah foos iyo dhammaan gabdhaha ilhaan qadro kulli saa ugu dheeda dhantinimo wada tirin karo maasha allah soo dhawaada adin leeyahay kubnooyin ku soo dhawaada soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo ilaahay baa mahad leh waxaa aada u mahadsan dadka sharafta leh oo xafladan qiimaha iyo qaayaha badan soo abaabulay wakhtigooda qaaligaa ku dhumiyey iyo dadka ka soo qayb galay oo murugo iyo mudanooyinba leh waxaan aada iyo aad u ammaanayaa hooyooyinka soomaaliyeed ee caawa taariikhda lama ilaawaanka meeshaan ka muujiyey oo ay xaliimo soofe anuu dadka aad baan u aqaani weyn baa ilaahay baa weyne marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin buraanburka iyo gabayada iyo taariikhda waxa anagu ma mari karo aad madheen aad iyo aadna wuu mahadsantihiin waana idin soo dhaweynaya waxa meeshaan xafladan waxay ay tahay saldhigeedu waa taageero in la taageero puntland 19 guuradeedii maamulkeedu uu jiray iyo in loo ducayo ummadda Soomaali meel ay joogtaba dibad iyo gudaba in loo ducayo ilaahay midnimadoodii iyo qarankoodii iyo waxay ahaan jireen ilaahay uu soo celiyo inaynu ducayno puntland waa maamul gaamuray weeye haddaan ku hormarayada waxaad ogsoon tihiin dowladnimadu saddex bay ka uqantaa waxa weeyaan sharci dejin iyo fulin iyo garsoor saddexdiiba waa leeyihiin marka sidaasaan aad iyo aad ugu soo dhaweyn uuna ammaanaya xafladdu hadalkii waa gabagabo cuntadii iyo hawlo kale mar dhow geli doonaa iyo entertainmentigii iyo marka hadda waxaan mar kale mikrofon ku celinayaa xagga ragga caaw dhan dumarkaan haystay marka intii saacadood ay qaateen baa qaadanaynaa bay leeyihiin odayaashu waxaan siinayaa adeer cali maxamed sadexle waxa weeye puntland baan rabaa inaan xoogaa yar ku nuuxnuuxsado puntland waa hooyada soomaaliyeed markii la eego calankii soomaaliya waqtigii laga halganayo israel ilaa burburkii dalka soomaaliyeed wixii soomaali maanta isku keenay ama gobasha u dhigay ama xeerarka u sameeyey ama u halgamay ama hadda u taagan rag iyo dumarba ayagoo ku maadsan waa puntland annaguna waxaan leenahay walaalahayo waa mahadsan yihiin waa horeyna uga sii socdeen waana bogaaninaynaa waana ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullah markaana waxaan siinayaa ugaaska daada yar ugaas ibraahim ugaas siraar kusoo dhawo mikrofon wax badan ma ku darayo maamooyinka hadlay wixii talo ahaa iyo tusaale ahaa iyo waano iyo wacdi ahaa dhanba buraanburkii iyo bay ku ekaayeen iyo taariikhda puntlandba waxaan wadaa un hambalyadaas ka mid a 19 inay jirsatay puntland waxaana leenahay ilaahay ha ku dayo horumarka intaa in kasii badan oo sii rajaynaa bidnillahi kariim soomaaliya ha noolaato haddana waxaa ku xiga dumarka caawana haysta ubax maxamuud ya heleedo wa heleyha heleedo ya heleedo wa heleyha la heleedo ya heleedo wa heleyha ehay gobolada badow badaney heleyha ehay buntland dacalladeedaayey heleyha ehay boqoraduna joogaaney heleyha ehay wabosaasa iyo baryey heleyha ehay bandarbayla iyo ayley heleyha ehay baarandhi iyo laas qorayey heleyha ehay buuhoodla iyo cayney heleyha ehay laas canon bogaadiyayey heleyha
ehey qardho duuguu baxayey ehey biilicdii garowaadey ehey gaalkacayada bilaney ehey galdogo baalihiisiiyey ehey galdogo baalihiisiiyey ehey ballidii xariireedey ehey saaxiyo bannaankeeyey ehey budulaani waa nabadey ehey barwaqa ilaah dhigayey ehey nimbegsaday hurdada bogayey ehey baabulayda geeliyey ehey looda oo banaaxininey ehey ariyahoo bannaan waraney ehey booqol nooc ugaadhiyey ehey badihiyo kalluunkiyey ehey beeyadiiya qooxiyey ehey ayda boorada bilaney ehey dekadaha isbaalyaalooy ehey biyo kuluula ceelkiyey ehey intaasoo barwaaqaayey iyo qaar kaloo kasii badaney ehey buntland bay u gartaayey ehey allahayow isii badiyey ehey caadowgooda baabi'iyey ehey oo balaaya ka xijaabey ehey allahayow usii badiyey aamiin ehey caadowgooda baabi'iyey ehey oo balaaya ka xijaabey warhoy maamul buuxa iyo nabadey ehey odayaal talada bixiyoy ehey booqortooyo soo jirayey ehey buntland bay u gartahayey ehey allahayow usii badiyey ehey caadowgooda baabi'iyey ehey oo balaaya ka xijaabey eleedowiya eleedowa eleedowiya eleedowa warhoy maamul buuxa iyo nabadey ehey booqortooyo soo jirayey ehey odayaal talada bixiyoy ehey buntland bay u gartahayey qofkii ugu dambeeyey waan mikrofoonka siinayaa insha allah oo xagga khudbadaha iyo buraanburada iyo gabayada waxaan siinayaa faadimo maxamuud indhayare oo ah maamooyinka jaaliyadda ows oo caawa martiino ah kusoo dhawo mikrofoonka anigu waxaad garan kartaan soomaalinimada aad baan u jeclaa puntlandtuna kama sii daran waa tayada labaad laakiin soomaalidan aad u jeclaa waxa weeye gaalkacyaan ku dhashay waxaana ku koray xamar marka sidaas baan horta soomaalinimada u jeclaa labadii dhinacba puntlandna de waaba ka imidba waxa weeye de waxba caawa ma sheegi karo oo waxaan waday adduun buraanbur gabay laakiin de jamaamiir baa meesha timido waxayga wadi baan u liqay waan iska liqay waxaygii waxba ma sheegi karo dad markuu xoogaa yaqyaqaano oo dadkii jamaamirta ay meesha yimaadaan waa inuu cambiirtiisa dib u liqaa marka dib baan u liqayo wax kaloo aan sheegaya male laakiin waxaan ii sheegayaa soomaali jacayl puntland jacayl inaan uga imid meeqa isu jirtaa aws iyo copenhagen dhowrka maxaan ku dhahaa dhowr boqol baan u malaynayaa inaan saas ugu imid intaasaad garan kartiin marka dhammaantiin waa salaamantihiin soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha noolaato soomaaliya mid kalena waa leeyahay qurba joogta quluubtooda allah nadiifiyo aamin salaamu calaykum raxmatullah Never
كتب لبا ترضى نقضاي كانت سننتي استديد حماه قد يوم سامنا يسكتوا بنبا ترضى نقضاي سننتي استديد حماه قد يوم سامنا waxau nasiib badan qofki duulay baxay dagay bilaane intuu tago dalkiisii yaa inaba ku geeya dad waxau nasiib badan qofki duulay baxay dagay bilaane intuu tago dalkiisii yaa inaba ku